xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cira ayaa sheegay in isku imaatinkaasi uu dhici doono saaka sidii lagu ballamo ayna tahay xuquuq dastuuri ah inay dadku isku iman karaan. Gudoomiye cira ayaa isku imaatinkaasi ku tilmaamay mid ay ku kala xog qaadanayaan hogaanka xisbiga iyo taageerayaashooda. Qadar Maxamed Cakulle ayuu u waramay. Akhbaar waxaan ku xaqiijinayaa in la keenay xaruntii dhexe welina uu joogo ciidan xoogan oo gaadiidna wata. waxaan kaloo ku xaqiijinayaa in la xidhay xogayihii guud iyo afhayeenka xisbiga oo iyaguna hadda ay xidhan yihiin sabab la-aanna u xidhan yihiin sida u adagna waan u cambaaraynaya xadhigoodaas. waxaan u soo jeedinayaa ciddii xidhatay in xorriyaddooda deg deg loogu soo celiyo waa xadhig sharci darro ah. marka xaggay joogeen marka la qabtay? afhayeenka gurigu nagaga tegey goor 8 ku dhow dhexdaa laga qabtay isagoo kusii socda gurigiisii. xogayaha guudna wuxuu u tegey afhayeenka in bal soo ogaado sababta loo xidhay. isagana markuu saldhigii tegey waxaa loola hadlay si anshaxa ka baxsan kadibna waa la xidhay. marka waalkiin halkay ku xidhan yihin? saldhiga dhexe haddaan meel kale loo qaadin. taliyaha ciidanka booliskuna wuxuu ka digay inay dadku soo baxaan. waa sharci darre muxuu ahaay xaggiisa ka sheegay. idinku gudoomiye si aad u aragtaan? waa kulan barnaamij maaha, mudaharaadna maaha. waa arrin sharciga iyo xeerarka iyo dastuurka u baneeyeen axsaabta inay xafiisyadooda iyo xarumahoodaba isugu iman karaan kana hadli karaan taageerayaashooda. mudaharaadkaa ruqso u baahan, mudaharaadna maaha kani. waxa weeyaan kulan xog waran oo aan u warramaynay taageerayaashayada, waxaan ugu warramaynay xarunta iyadoo keliya, meel kale ma ahayn. marka arrintii maadaama saraakiishii booliska oo kale hadleen dadkiina u digeen maxaa arrintii ma halkiiba weli waa mise waa wad bedesheen? annaga waxba kamaanaan bedelin. taliyayaasha booliiska iyo booliiskana waxaan u sheegaynaa inay sharciga u hoggaansamaan. dastuurka u fasaxaya, xeerkaa noo fasaxaya inaanu dadka kala hadalno xarumaha iyaga. marka hadday leeyihin sharcigaanu ilaalinaynaa oo ku adagnahay, sharciga ha u hoggaansamaan. dadkana wax iska bedelay ma jiro, ballantuna waa sideedii berito. waraysigaasina xalay habeennimadii ayuu siiyey wariyaheena qadar maxamed cakulle gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro. ra-iisul wasaaraha dalka Canada ayaa Arbacada soo socota la filayaa inuu soo magacaabo golihiisa wasiirada xilli aanu si rasmi ah u shaacin xisbiga uu bahwadaagta la noqonayo maadaama aanu haysan dowlad aqlabiyada. Soomaali badan ayaa isha ku haya in mar kale ay iska dhex arki doonaan golaha wasiirada ee lasoo dhisayo iyo in lasoo celiyo xildhibaan Axmed Xuseen oo horey u ahaa wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga ee dalka Canada. wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray. ra-iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau ayaa lagu wadaa in Arbacada soo socota uu soo dhiso xukuumaddiisa, iyadoo dad badan ay isweydiinayaan xisbiga uu taxaaluf la samaysan doono maadaama uusan haysan dowlad aqlabiyada. Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta ayaan weydiiyey haddii dowladdan Trudeau aysan taxaaluf la samaysan xisbiyada kale mid ka mid a waxa dhici kara. horta dowladdu ma aha dowlad aqlabiyad leh oo may helin 157 kursiga loo baahnaa. aqlabiyadda may helin oo 157 ayay heshay. marka waa inay ka heshaa xisbiyada kale ee mucaaradka, wayna ka heshaa taageero si aanay u dhicin marka ay soo bandhigaan miisaaniyadooda u horeysa oo bisha February ah. oo haddii miisaaniyada la diido dee dowladoo dhan ay dhacayso markaa food cusub la gelayo. marka si ayna taasi u dhicin waa inay waxyaalo xisbiyada kale ay tabayeen waa inay keentaa. waa tahay Professor, marka dowlad noocee baa laga filan karaa Justin Trudeau inuu soo dhiso? maadaama dowlad hor socda ay tahay dowladda magaranaysa Trudeau, waa laga yaabaa inay wax ka qabtaan cimilada oo xataa ay magacaabaanba wasiirad gooniya ay sameeyaan u gaara cimilada, isbedelka cimilada, oo tii hore ahayd deegaankuna hoos imanin
ayaa iyaduna dhici karta, taasoo markaa waxoogaa usoo jiidi doonto xisbiyada NDP oo kale iyo greenka kuwa cagaarka la yidhaahdo ee magaranaysaa inay u footeeyaan. waxaa laga yaabaa haddii ay wax ka qabtaan goboladii aad cadhadu uga jirtay ee liberalka aan lagaba soo dooran ee gobolka Alberta Saskatchewan oo kale ee laga doortay keliya mucaaradka xisbiga conservative-ka, waa laga yaabaa haddii ay u jajabnaadaan oo badroolka iyo iibgeyntiisa iyo ka shaqeeyaan in ma garanaysaa ay doortaan. si taa markaa loo sameeyo waxa laleeyahay waa in la sameeyaa wasiir xiriirka gobolada ah oo waxaaba loo magacaabayaaba laleeyahay afka lagu hayaa inanta la Krista Freeland oo ku soo caan baxday wasaaradda arrimaha dibadda, oo inkastoo iyada ka soo baxday Ontario haddana ku dhalatay gobolkan Alberta oo nin beeraley uu dhalay. arrinta laga filayaa dowladdan waxa weeyaan inay isku miisaanto haweenka iyo ragga wasiirada noqonaya oo tira islaag mid walba ay ka soo magacowdo sidii looga bartay. dadka qaar waxay ka walaacsan yihiin in dowladda cusub ee liberaalku aysan fulinin ballanqaadyadii ay gashay xilligii doorashada, maadaama aysan haysan dowlad aqlabiyada. wax ka qabashada arrimaha dilalka dhalinyarada dadka qaar waxay rumaysan yihiin inay saldhig u tahay xakamaynta hubka, taasoo xisbiga liberaalku ay ballan qaadeen inay si adag u wajihi doonaan, balse xisbiga muxaafidka ee mucaaradka rasmiga ah uu caqabad ku noqon karo haddii dowladdu aysan taxaaluf la samaysan xisbiyada kale si ay u meelmariso qorshahan iyo kuwo kale. waa kan Yaasiin Abikar oo aad ula socda arrimaha siyaasadda ee dalkan. waan xuseen sida la socoto Justin Trudeau markii uu doorashada soo galay waxa uu sheegay in hubka sharci darada wadankan sida zaidka u joogo inuu xakameyn doono dhammaan dadka sida qaldan hubka u haysan hubka ka qaadi doona. dhinaca kale markaa fiirisa xisbiga conservative waxay kasoo horjeedaan in arrimahaas laga hadlay. waxay ku leeyihiin kaliya hubka waxaynu ka qaadinaa qofka dembiga galaya ama qofka tuuga, laakiin wadanka markaa u fiiriso 80% ma aha dadka wax dilaya tuuga kaliya maaha. dad waxaa jira mataqaana dhibaato kala dhexdooda ka wada dhacday, qof waxaa jira mataqaana madaxa looga jiro kale wuxuu iska sameynaya. laakiin marba waxaa haboon sida hadda Justin Trudeau kale uu sheegayo in hubkan laga wada xakameeyo dhammaan si nabad iyo dhibaatadan hadda mataqaana dilka tirada badan wadanka ka jira ay u yaraadaan. laakiin haddii Justin Trudeau iyo kooxdiisa ay markaas ay aqlabiyad aysan haysan sharciyada qaarkood aysan meelmarin karin, waxaa adkaanaysa in waxaas ay meelmariyaan. dadka ka faallooda arrimaha siyaasaddu waxay sheegayaan in tiro ka badan xukuumaddii hore uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare Justin Trudeau, iyadoo sidoo kale ay kasoo dhex muuqan doonaan wejiyo badan oo horey ugu jiray xukuumaddii hore. balse Soomaalidu waxay si gooni ah isha ugu hayaan xildhibaan Axmed Xuseen oo horey u ahaa wasiirka socdaalka, jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga. waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame. inkastoo dadka afka lagu hayo inay soo noqonayaan ay tahay gabadha Krista Freeland iyo nin la yiraahdo Bill Monroe oo ahaa maaliyadda ah, haddana anigu waxaan isleeyahay Axmed Xuseen waa lagu soo celin doonaa wasaaradii socdaalka ee uu marka horeba ka madax ahaa. sababtuna waxa weeye ninku wasaaraddaas wax wanaagsan buu ka qabtay oo nin aad ma garanaysaa u shaqeeyey oo dadaalay. hase ahaatee maadaama uu kordhiyey dadkii imanayey oo gaar ahaan soo galatigu badiyey oo 50,000 uu ku kordhiyey oo ilaa 400,000 hadda ay soo gaasho sanadkii, haddana dad badan baa arrintaa kula culoobay. marka waa laga yaabaa in uu Trudeau uu yidhaahdo balse uu arrintaa u qaboojiyo malaa Axmed wasaarad kale inaan geeyo ayaa roon inuu yidhahdo way dhici kartaa. waxaan is odhan lahaa malaa wasaaradda ugu fiican in la geeyo ay tahayna wasaaradda cadaaladda oo kale, maadaama nin loo yaro uu yahay. dowladdan liberaalka ayaa 22 bishii Oktoobar ee sanadkan ku guuleysatay doorashada iyagoo helay tiro xildhibaano ah oo aysan ku sharciyeyn karin dhammaan sharciyada ay rabaan inay meel mariyaan haddii aysan codad ka helin qaar ka mid ah xildhibaanada xisbiyada kale. Xuseen Nur Xaaji, VOA, Toronto.